intaba xagga dhinaca waxbarashada oo kale luqadda ingiriisku aad iyo aad ayaa looga tixgeliyaa oo waxaa ku soo biray dalka dugsiyo waxbarasho oo heer caalami ah qaarkood oo jaamacado waaweyn ku xidhan qaar kalena ay jaamacado heer degmo ay ku xidhan yihiin intaba waxaa kaloo oo weliba la isweydiin karaa saameyntaasi dhalatay ummadda reer Jabuuti may la jaan qaaday mise weli way ka gaabinaysaa su'aalahaasi run ahaantii dabcan barnaamijka iyo qormada aan uga soo diyaarinay ayaa jawaabta ay ku jiraan bal ugu horeyn waxaan jeclahay daawadayaasha inaan u saarno barnaamijka aan ka soo diyaarinay awoodda iyo saameynta luqadda ingiriiska ay ku leedahay guud ahaan dalka oo dhan gaar ahaana baayac mushtarka iyo suuqa shaqada ama marshadi travaiga wax la yiraahdo ee gudoomacan saameynta luqadda ingiriiska iyo ka dhex muuqashada suuqa baayac mushtarka iyo shaqo ee dalka ayaa ah xilligan mid muuqda barashada luqadda ingiriiska ee jamhuuriyadda Jabuuti ma aha mid soo jireen ah hase yeeshee waa mid la socota ilbaxnimada iyo furfurnaanshaha dhaqaale ee xukuumadda taasi oo u gogol xaadhay maalqabeeno tiro badan oo shisheeye oo maalgashaday dalka oo iyaguna wata luqadooda iyo afkooda u gaarka ah shaki kuma jiro in luqadda ingiriisku tahay tani kaliya ee adduunka oo dhan isku fahmo ama lagu wada sheekaysan karo hadday noqoto dhinacyada ganacsiga teknolojiyadda casriga iyo gaar ahaan shaqagalka dhalinyarada reer Jabuuti waana sababta keentay in dugsiyo iyo macadyo tiro badan oo caalami ah oo bixinaya casharo ingiriis oo xirfadooda wata laga dareemay dalka oo dhan waxaa jirta oo kale hami iyo han weyn oo ay qabaan dhalinyarada reer Jabuuti ee shaqadoonka ah inay ka faa'iideystaan fursadaha shaqo ee ingiriiska sal u yahay waxaan booqday dugsiga ama macad ka mid ah macadyada dhiga ingiriiska waa macadka Oxford International Academy oo ah macad heer sare oo si xirfad badan iyo heer takhasus ah ugu talagalay barashada luqadda ingiriiska oo sanadihii ugu dambeeyay si xawliya saameynteeda looga dareemay suuqa shaqada ee Jabuuti waxaan halkaas kula kulmay agaasimaha guud ee Oxford International Academy Mudane Roble Cali Maxamed waxaan ugu horeyn weydiiyay sida uu arko barashada ingiriiska ee jamhuuriyadda Jabuuti ingiriisigu Jabuuti wuxuu ka qaataa mataqaanaa qayb libax ka qaataa waxaan moodaa ilaa 12 sano u dambeeyay wadankeenu iyo inay isla socdaan mataqaanaa baahida ingiriisigu waxaana u sala la oran karaa furfurashaha dhaqaalaha wadankeena oo furfurmay shirkado badan ajaanibi soo degayaan waxaana ka bilaabataa la oran karaa markii u horeysay Mareykanka wadankeena soo degay inay baahi badan oo mataqaanaa dhinaca ingiriiska ay timiday taana waxa daba socday shirkado badan ajaanibi wadankeena ku soo biiray oo maal gashaday taasa keentay in mataqaanaa baahidii mataqaanaa ingiriiska ay aad u badato iyo